weligaa ha u ooyin qof qalbigaaga dhaawacay oo kaa tegay u dhoola caddee kuna dhee waad ku mahadsan tahay sidaad fursad iigu siisay inaan helo qof kaa fiican weligaa ha nicin dadka kaa masayrsan sababtoo ah waxay kaaga masayrsan yihiin waxay aaminsan yihiin inaad ka fiican tahay qofna ha u sheegin qorshayaashaada balse taa beddelkeeda tus natiijooyinkaaga aad gaadho haquusan hana isdhiibin maalintaadu way iman doontaa waqti oo keliya ayaa kaa xiga haddii aad qof caawinayso oo aad ka filayso inaad taa beddelkeeda ka hesho waxaad samaynaysaa ganacsi ee naxariis maad samayn badanaa xusuusnow in xaaladda aad hadda ku sugan tahay aanay ahayn tii ugu dambaysay noloshaada wixii kuugu fiicnaa way kuu soo socdaan waa inaad mugdi ku jirtaa ka hor intaanay cadceeddu kuu soo bixin aaskayga ha iman si aad ii tusto inaad idanaynaysay balse intaan noolahay ee aan ifka joogo itus inaad idanaynayso weligaa ha jawaabin markaad cadhaysan tahay weligaa ballan ha qaadin markaad faraxsan tahay weligaana go'aan ha qaadan markaad murugaysan tahay jooji inaad daacadnimo ka rajayso dadka aan ku siin karin daacadnimada noloshu way gaaban tahay waqtiguna wuu cararayaa dibna looma soo celin karo sidaa awgeed ku raaxayso kana faa'iidayso waqti kasta oo ku soo mara haquusan bilowgu badanaa waa waxa ugu adag dhibaatooyinka noloshu kuguma yimaadaan inay ku burburiyaan balse waxay kuugu yimaadaan inay kaa caawiyaan inaad ogaato kartidaada iyo awoodahaaga xanuun iyo dhibaato kastaaba cashar ayay ku noqdaan cashar kastaana wuxuu beddelaa qofka noloshiisa weligaa ha joojin inaad wax barato sababtoo ah marnaba noloshu ma joojiso inay wax ku barto waxaa jira hal qof oo keliya oo weligaa kaa dhigi karaa qof faraxsan qofkaasina waa adiga casharrada noloshu way kugu soo noqnoqon doonaan ilaa aad wax ka baranayso haddii aad rabto inaad hesho waxaanad weligaa hore u helin waa inaad samaysaa waxaanad weligaa hore u samayn webigu kuma jiro dhagaxa awooddiisa balse wuxuu ku jiraa adkaysigiisa caqliyada xoogani waxay ka doodaan fikradaha caqliyada dhexe waxay ka doodaan dhacdooyinka caqliyada daciifka ahina waxay ka doodaan dadka waxqabadyada aad inta ugu badan ka fogaataa waa kuwa ay ku jiraan fursadahaaga ugu weyne maanta qabo waxaanay kuwa kale qabanayn si aad berri u qabato waxaanay kuwa kale qaban karin fogaantu ma kala fogaysa dadka aamusnaanta ayaa kala fogaysa ha aaminin dadka kuu sheega dadka kale sirahooda socdaalka kumanaanka mayl ahi wuxuu ka bilowdaa hal tallaabo aqoontu way hadashaa balse xikmaddu way dhegaysataa weligaa ha ka dhex gelin cadowgaaga marka uu khalad samaynayo mustaqbalkaaga waxa abuuro waxa aad maanta samayso maaha waxaad berri samayn doonto weligaa been ha u sheegin qofku aaminaa weligaana ha aaminin qof been kuu sheega halganka aad maanta ku jirtaa wuxuu horumarinayaa xoogga aad berri u baahan tahay ha ka cabsan inaad guul darraysato balse ka cabso inaad sannadka dambe joogto isla halka aad maanta joogto qofka sida dhabta ah kuu jeceli weligii ku ogolaan maayo inaad ka tagto si kastaba xaaladdu ha u adkaatee haddii aad qof qalbigiisa jabiso oo uu haddana kuula hadlo sidii xiisaha iyo qadarinta lahayd ee uu kuula hadli jiray i aamin qofkaasi wuu ku jecel yahay ha barbar dhigin naftaada dadka kale laysma barbar dhigi karo dayaxa iyo cadceedda labaduba waxay iftiimaan markuu wakhtigoodu gaadho si aad dhaawac u dawayso waa inaad joojisaa taabashadiisa waxaad sheegi kartaa inta uu qof caqligiisu leeyahay adigoo eegaya waxa uu ku qoslo markaad xaqiiqsato inaad qof si joogto ah ula dhaqmayso si aad uga fiican sida ay kuula dhaqmaan oo wakhtigaad isbeddel samayn lahayd haddii aanad u dagaalamayn waxa aad rabto ha u ooyin waxa aad weydo inaad naftaada jeclaataa waa sirta koowaad ee farxadda dadka guulaha gaadhaa socdaalkooday sii wadaan qaladaad way sameeyaan balse ma quustaan noloshu ma fiicnaato ilaa aad adigu fiicnaato waxa keliya ee ku xadidaa waa maskaxdaada markaad qof u jeclaato in ka badan inta uu u qalmo wuxuu hubaal ku dhaawici doonaa in ka badan inta aad u qalanto aamusnaantu waa jawaabta ugu fiican ee aad siin karto qofka aan qiimayn hadalladaada haddii aad rabto inaad guul gaadho waa inaad tixgelisaa hal sharci weligaa naftaada been ha u sheegin dadka qaar daacad kuma aha
waxay daacad u yihiin baahida ay kugu qabaan markay baahidoodu isbedeshana daacadnimadoodu way isbedeshaa naftaada noqo qof kalena ha iska dhigin sababtoo ah waxa originaalka ahi uu ka qaalisan yahay waxa koobiga ah shaqadaadu kuma daryeeli doonto markaad xanuunsato qoyskaaga iyo saaxiibada ayaa ku daryeeli doonaa ee ku xidhnow weligaa ha iska indhatirin qofku jecel oo ku daryeela sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad maalin xaqiiqsato inaad weyday dheeman intii aad ku mashquulsanayd urursashada dhagaxaanta aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaa idinla socodsiinaya muuqaalkan anigoo cabdirasaaq faaraxa haddii aad ka heshay like saar lana sii wadaag asxaabtaada xikmadda aad aadka uga heshayna nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga tan iyo kulankeenna kan xiga ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh